waa 17 bisha 6 ee June sanada 2021 waxaan nahay Abuukar Cali Cadaawe ku soo dhawaada qodobada ugu door karoon wararka dunida ee warbaahinta City shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo shir gudoomiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wafdi ka socday qaramada midoobay ee u gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo bilaabay howlo nadaafadeed wafdi uu hogaaminayay xeer ilaaliye ku-xigeenka dalka oo kormeeray saldhigga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo dalalka khaliijka oo soo jeediyay dalab ku saabsan wada hadallada Iiraan qodobadaasi iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal wararka dunida ee warbaahinta City ee u diyaar garooba iyagoo intaasi ka faahfaahsan markale habeen wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaabno sida hordhaca wararka dunida ee warbaahinta City aad ku daawaneyseenba shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo uu maanta shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka gurmadka fatahaadaha iyo sidoo kale xaaladda caabuqa COVID-19 iyadoo la ansixiyay habraaca shaqosiinta dibadda ee shaqaalaha Soomaaliyeed kulankaasi markii uu soo idlaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay afayeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Maclimo bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo khamiisa 17 bisha June 2021 shirkii golaha wasiirada maanta waxa furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha ugu horeyn waxa uu warbixin kooban ka siiyay golaha wasiirada arrimaha doorashooyinka dalka iyo hirgelinteeda howlaha socda waxa ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in dhammaan dowlad goboleedyadu ay soo direen iyo gobolka Banaadir iyo Somaliland gudiyadii doorashada dhammaantoodna ay diyaar yihiin sida ugu dhaqsaha badanna xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu soo saari doono liiska kama dambaysta ee gudiyadaas oo dhan ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyay in doorashadaas ay noqon doonto mid furan warbaahintu ay goobjoog ka tahay xoogna u saari doono sidii ay doorashadaas u noqon lahayd mid dhammaan dadka Soomaaliyeed u horseeda doorashada furan ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyay oo kale in qoondada haweenku ay ka go'an tahay isla markaana ahmiyad uu siinayo sidii loo sugi lahaana uu maaragtay xoogga saari doono intaa kadib ra'iisul wasaaruhu waxa uu aaday kulamo gooni ah oo isaga uu lahaa muhiim u ahaa waxaana shirka sii waday oo shir gudoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qadar waxa ugu horeyn warbixin laga dhageystay wasiirada amniga iyo difaaca kuwaasoo xaaladaha dalka iyo amnigiisa ka hadlayay su'aalana la weydiiyay sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka oo la xiriiray arrimaha gurmadka iyo abaaraha maaragtay howlihii u dambeeyay ay qabanayeen ugu dambeyntiina wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu golaha wasiirada u soo bandhigay habraac shaqasiinta xoogstada Soomaaliyeed ee dibadda waxaana dood iyo maaragtay falanqeyn kadib golaha wasiiradu ay u qaadeen cod aqlabiyada ayaana lagu ansixiyay habraacaas oo muhiim ah وافيانك حكومة فدرال كاه Soomaaliya Maxamed Ibraahim Maclimo waxa uu ka hadlayay shirkii toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble markan hadii aynu eegno saaxiibayaal maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegay in dadka halkaasi ku dhaqan ay u baahan yihiin gargaar dhinac walba leh waxaana maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ugu baaqay in dadkaasi lala soo gaaro gargaar markaasi bani aadamnimo waa dadka ku dhaqan duleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool ما قطعي دقمدهم حضور أنت لما كنت مقلة بالتطبيقات كودي وأنت كويت إلا حلقة أنت جهة تكهايتي ما إلا رهتنا ما يبقى كدار ما إلا يدي تجيء له يوردات كهران روجي ما يقدر ما ولي ديجان كي هاي أردن ديجان كي دات كي بيرولي دي هاي أو قوفف دي إيش يونا يتابو ما إلا راه بيروجي هاي هاتنا لها جوري مدكات أنت ليش يعني ما يبدأ يدات هندولة أو أريان أو دور كين في جوا يعني كبلان دات كميلان كوي مركن ما إلا راه كل الباب وفدقنا بالليرنو وزير كجاميو هاي نجي kan rojo karigan may la raayso xaalad bani aadamka ku teegan waa maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool waxa ay sheegeen in dadka halkaasi ku dhaqan ay u baahan yihiin gargaar dhinac walba leh maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayayna ugu baaqeen in dadkaasi lala soo gaaro gargaar bani aadamnimo markan hadii aynu eegno saaxiibayaal ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa bilaabay howlo nadaafadeed
howlahan oo isugu jiray nadaafad iyo sidoo kale ka qaadista gaadiidka shilalka soo galay ee markaasi buux dhaafiyey xarunta fisha traffic oo ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee maamulka gobolka Banaadir. taliyaha ilaalada wadooyinka sareeyo guuto Bashiir Abshir Geedi ayaa sheegay in xarunta fisha traffic oo ay buux dhaafiyeen gaadiidkii shilalka soo galay isla markaana ay diyaariyeen xarun kale oo ku dhagan xarunta fisha traffic oo isla markaana gaadiidka burbursan ay halkaasi ku daadgureyn doonaan si markaasi loo nadiifiyo xarunta weyn ee fisha traffic. markay shilalka galaan lagu soo xareeyay oo meeshan ku baaba'ay ku daxalaystay xaradiina u keenay nadaafad darro iyo curyaamin iyo goobihii dibadhiska iyo horumarka xerada iyo bilicdeeda laga samayn lahaa runtii ay baabuurtaasu naafeeyeen. saakay waxaan bilownay oo aan rajeynaya inaan ku guulaysanno ilaahay idankiis xero kale oo cusub oo ku dheggan xerada fisha traffico oo aan aas-aasnay ayaan waxaan geenaynaa gaadiidkii. waa taliyaha ilaalada wadooyinka maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in xarunta fisha traffic ay buux dhaafiyeen gaadiidkii shilalka soo galay ee halkaasi la geyn jiray isla markaana ay diyaariyeen xarun kale oo ay ugu talagaleen in ay ku daadgureeyaan gaadiidkaasi burbursan si loo nadiifiyo xarunta weyn ee fisha traffic. markan haddii aynu eegno saaxiibayaal xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ayaa kormeeray saldhigga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Gaanshaale Muumin Xuseen ayaa isagu ka warbixiyay ujeedka safarkiisa iyo kormeerka uu ku tagay saldhigga booliiska degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi Mudug. in uu jiro dishibiliin ee kala dambeyn haddii aadan ku ixtiraamin qofka ka sareeyo ee darajada uu ku dheer yahay adigana ma helaysid inuu kugu ixtiraamaa kan mataqaanaa ka darajo yar nidaamka ciidanka iyo isxukunka waxaa lagu kala sareeyaa darajada runtii mataqaanaa waxyaabaha aan qaarkood la kulma dadka u xiran waxay ahaayeen dad si mataqaanaa akhlaaq darro ama qaab darro ula dhaqmay saraakiil shaqo ku jiray taasi sax maahan. ciidanku shayga ugu horeeya waa dishibiliin ma ahan inaad libisnaataa oo dariis wadata oo kaba wadata oo koofi sidataa ma ahan ciidanimada waa inaad shuruucda iyo mataqaanaa aad ilaalisaa iyo dhaqanka. xaqiiqatan waxaad tahay shaqaale, waxaad shaqaale u tahay bulshada guryaheeda jiifta, waxaad shaqaale u tahay bulshada ganacsanaysa, waxaad shaqaale u tahay mataqaanaa madaxda. waa xeer ilaaliye ku-xigeenka dalka oo ka warbixinayay ujeedka safarkiisa iyo kormeerka uu ku tagay saldhigga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. markan haddii aynu eegno saaxiibayaal agaasimaha waaxda manaahiijta ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ah ee Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay khubarada juhdiga weyn ee ay geliyeen falanqeynta iyo soo jeedinta manhajka tababarada ee macallimiin wax ka dhigta dugsiyada dalka. khubarada juhdiga weyn gelisay oo habeen iyo maalin u taagnaa in manhajkan la qoro si tayaysanna loo soo bandhigo oo muxuu ahaa runtii juhdiga aadka u weyn gelshay. abaalkooda ma gudi karno. waxaan dhahaynaa miisaanka aakhiro allah idinkugu daro. runtii waa camal aad u weyn oo ummaddeena aan rabno inaan wax kaga bedelno. aada ugu mahadsantiin. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celsho markaan akhbaaraadka caalamka aynu eegaynaa saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyay ee wararka dunida ee warbaahinta Citizen isla soo gaarnay dalalka ugu awooda badan caalamka iyo Iiraan ayaa iyaga waxaa sabtidii Vienna uga bilowday wareegii lixaad ee wadahadalada lagu doonayo in dib loogu soo nooleeyo heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka Iiraan kaasi oo ay markaasi kasoo horjeesteen Sacuudi Carabiya iyo xulufadeeda isla markaana Mareykanka uu ka baxay 2018. Tehran ayaa iyada diiday isku day kasta oo markaasi arrimo kale loogu darayo heshiiska kaasi oo ay markaasi ku ogolaatay in ay xakameynayso barnaamijka nukliyeerka iyada oo markaasi ka dalbanaysa ama ku badbaadinaysa Iiraahdee in laga qaado cunaqabateenada saaran waa Iiraan. qaybihii ugu dambeeyay ee wararka dunida ee warbaahinta Citizen isla soo gaarnay saaxiibayaal
guud ahaan intaasi aynu kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan sidaad la socoteenba waxaa halkan idinkala socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah dhanka kaamirada waa Mahad Muuse Mahad Arki halka farsamada uu ka qaabeynayay Cumar Guux intaynu dib ugu kulmi doono saaxiibayaal wararka dunida ee warbaahinta City-ga xigana waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo isma dhaafno